ka waran maasha Allah tabaarakallah kareem banaanka laga soo gado ma aragtay maxaa ka baryaysaa sidaan wuxuu kuugu noqday maasha Allah kareem waana nafaqo natural waaye wax ka maqan malahan ku iri aagaas oo kala ku daboolnay gurigaaga dhigane maasha Allah hadaad wadidan ku iri kan 2 week ya waa 2 isbuuc waa dareemaysaa ayaan ku iri fitamiinkana marka ku darsanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu way salaamay walaalaha ku jira channelka wadajir group soo dhawaada meel walba dunida ka joogtiin magacayga waa Fardowsa maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad u qurux badan oo aan idinku tala galay insha Allah meeshan waxaan noo yaalo cambo waa u jeedin waxa bad camba oo is haysato marka waxaan rabaa inaan maanta wajiga aan qurxino kolay waxa u maleynaa dad badan inayna ogeyn sida camba wajiga lagu qurxin karo camba in la cabo bisa u naqaana iyo kareemkan waa taqaaniin waxa lagu darsadaa asagana keeg iyo waxa lagu sameystaa marka asagana waxa waay waa isku dareynaa muxuu u fiican yahay marka alaabtan aan soo sameeyay insha Allah wuxuu u fiican yahay wajiga qaleelka wajigaaga hadaad qaleel badan ku aragtay oo wajigaaga qaleelka yahay oo wax dufana oo lahayn waa u fiican yahay mideeda kale wuxuu kale u fiican yahay cambaha hadaa rabtid kareemkaas wuu ka deyn karaa qofkii wajigiisa qaleelka bis ayaa kareemkaas ku darsan karo oo caaga ku jiro laakiin qofkii rabo inuu wajigiisa cayilo oo bucbuc u noqdo oo wajigiisa sida inaan laga dareemin maxay ahayd wajigiisa inuu caata yahay wajiga waa aragtay hilibka haduu ka dhamaado wajigu isku soo dhacaya marka waxaas oo kale uu u fiican yahay waxaan ku darsanaynaa asagana waa xulbada inuu oo shiidan waa xulbada shiidan asagana waa ku dareynaa wajiga cambaha iyo xulbada iyo kareemka miiska noo saaran waa bariiska shiidan insha Allah oo bariiskeena cadda oo la shiiday asagana waan ku darsanaynaa alaabtaan oo dhan maasha Allah afakaadada lafteeda ayaa ku jirto waa idin tusaaya ayadana saan u sameeyay hadda furunku noogu jiraa afakaadada lafteeda ayaan dab aan galiyay meesha furunka xoogaa waxaan rabaa inuu kuleel noqdo kadibna aan shiido waayo waxa ku jirta ayadana nafaqo badan fitamiino badan ku jiro insha Allah intaas oo dhan ayaan rabaa maanta inaan idin tuso wajigaaga saa u qurxin lahayd sidoo wajigaaga maasha Allah kugu noqon lahaa waji yar oo cayilan oo qurux badan iyo sida wajigaaga qaleelka haduu ka yahay qaleelka uga bixin lahayd fiidiyowgayga hadaad ka hesho subscribe iyo like waa xagaaga ambaha waa u jeedin haafan ka dhigay waayo laba bari bas la rabaa inuu talaajada iigu jiro adiga waxa waay hadaa rabtid 3 bari oo kale waad marsan kartaa hadii aad meel qabooba oo banaanka oo kale waa iska dhigan kartaa laakiin wixii 3 bari ka dambeeyo waa qoyaan waa shiiri karaa ambana waaye insha Allah laba bari ama 3 bari oo ka badan hadii aad sameysanaysid laakiin ani hadda cadkan yarka waxaan ugu tala galay inuu laba bari yaalo insha Allah kareemkan ku darayaa waa kana kareemkan ku qiyaasaya waa u jeedin maasha Allah laabtan isku soo ogaadaan ku dhahay 2 qaando ka badan kuma darin cambihi iyo double cream waxaan ka wadaa kareemkii hadda aan ku daraayay oo keega lagu qaso double creamkii cambihi waa isku daray waan shiidayaa marka waa kana alaabtii aan shiidasaan oo noqdo u jeedin marka cambihi iyo kareem double creamkii aan isku shiiday saas uu ku soo baxay insha Allah waxaan ku yiri maasha Allah kareem caadi noo noqday waana wax natural oo dabiici wax kiimika kuma jiraan insha Allah isku soo ogow alaabtaan waxaan ku yiri galowinkaana oo ay kaanaysa insha Allah hadaad wadid hal bil labada isbuuc ugu horeysa aad iska fahmaayo laakiin wixii waa inaad wadaa insha Allah waa kana sidaan noo noqday maasha Allah tabaarakallah ya alaabtan qoyaanka marka waa kana caagaan kala ku shubanaysaa waa u jeedaa yani kareem aad u qaleel uu noqon oo qoyaan oo waxaan ka wadaa oo biyana ma noqon si kareem camal ku noqdo waa u jeedaa double kareemkaas iyo qurxinaayo cambahana maasha Allah natural waaye alaabtaan oo saan ayaad wixii qaleelka shiiday
alaabtaan kalan tusaya insha allah. bariiskii iyo xulbadii aa ku dhex darsanaysaa insha allah. waa kana ka waran maasha allah tabaarakallah. kareem banaanka laga soo gado ma aragtay maxaa ka baryaysaa sidaana wuxuu kuugu noqday maasha allah. kareem waana nafaqo natural waaye, wax ka maqan malahan ku iri. caagaas oo kale ku daboolnay gurigaaga dhigane maasha allah. haddaad wadidan ku iri kan 2 week yaa waa 2 isbuuc waa dareemaysaa ayaan ku iri. fitamiinkana marka aad ku darsanaysaa soo kala soo gadan. haddaad haysanna fitamiin A aad ku darsanaysaa. haddaad haysan fitamiin dhanna waxaad ku darsanaysaa oil leaf ama coconut oil. qof walba waxa waay siduu wax u heli karo ayuu u qabsanayaa. nafsadaada inaad kaliftid ma aha. insha allah biidnillah kareemkeen waa noo diyaar. alaabtii kale aan ku darsan lahayn aan hadda idin tusayaa. waatana laftii afakaadhada waxaan geliyey furunka. dabkaan ku daarayaa furunka insha allah. kadib adiga waxaan sugayaa muddo 10 daqiiqa kadib aan arkayna si kusoo baxdo. waatana laftii afakaadhada waaye oo aan dabka ka soo dejiyey. iyadana waa ujeediin way jilicsan tahay markii oo la dubo saasay noqonaysaa. ujeedido marka waa laftii afakaadhada waa ujeediin. furunkaan geliyey waan gubay xoogaa. marka insha allah iyadana waxa waaye waxaan gelinaa mashiinka waan ku shiidayaa. mashiinkana ku shiida waa jarjarayaa waa idin tusayaa. ujeedido dhaxda markii laga kala jaro saanay noqonaysaa lafta afakaadhada yaa maasha allah. way jilicsantaa laakiin waa kaasaa caadi u kala go'aysaa. markii la dubo caadi u jilicsan tahay. ha isdhihin lafta afakaadhada way adag tahay. markii afakaadhada ku jirto way adag tahay laakiin marka kale caadi u jilicsan tahay insha allah. iyadana waxa waaye waan shiidayaa. waa ujeediin mashiinkaasaan ku shiidayaa. kaligiis waa wax lagu daraayo malaha. kaligiisaan shiidaynaa. waa alaabtii qaleelka aan ku talagalay waaye oo aan rabo inaan idin tuso xulbadda iyo lafta afakaadhada iyo bariiska qaabka uu kusoo baxayo. waatana alaabtii aan shiiday afakaadhada waxaan ku darsanaynaa insha allah biidnillah xulbada waa taqaaniin. ayadana wejiga hadduu qofka caato ka yahay bucbucay ugu dhigtaa waa qurxisaa. xulbada halkaas qaando aad u badan ma aha laakiin waa qaando hafkeeda. ayadana waa ku darsanaynaa insha allah waa idin tusayaa. xulbadii waxaan isku daray iyo laftii afakaadhada waa ujeediin. waatana marka alaabtii oo diyaar noo adiga wax yar aa marsan kartid. alaabtii qaleelkaan isku shiiday waa laftii afakaadhada iyo xulbadii. waa kana intaan yarta waxaa maalintii marsan kartid. maadaama hadda aan marsanaayo ayaan idinla wadaagayaa. intaasaan ku darsanayaa marka badsanaayo maadaama wejiga kaliya aan marinayo. maxaan ku darsanayaa marka bariiskii shiidnaa. waa kaligiis isagana waa shiidan yahay. waa alaabtii qaleelka ahayd. iyadana wax yaraan ku darsanayaa insha allah. intaas oo saas isku ayaan saas ugu darayaa. waa ujeediin alaabtaa marka hadday kuu shiidan tahay ee meel kuugu jirto armaajada ama meel aad gashatid. alaabta qaleelka waxaa waaye talaajo ma gelinaysa. armaajadaada ama jikadaada meel ka dhiganaysaa. taas marnaba kaama halaabayso sideeday ahaanaysaa. waxaa ku darsanaysaa kareemkii double kareemkii ayaan ku darsanaynaa insha allah. isagana intaas dhigi kartid waa marsanaysaa ayaad ku darsanaysaa. alaabtii kuu shiidneed iyo double kareemkii saas iskugu darsanay. waa ujeediin maasha allah. alaabtan waxaan ku eray lagama sheekeyn karo. ila soo tijaabi adaa dareemi doontid. waayo waa wax natural oo wax jirkaaga qurux ka dhigi doono. soo jirkaaga gudihiisa amba haddaad cuntid. afakaadhada sidoo kale xulbada sidoo kale ayuu jirkaaga kana qurux uga dhigayaa. sidaan isagoo ayaad wejigaaga marsanaysaa insha allah. haddaad u baahantahay kareem kale ku darsan kartaa. double kareemka wax yar ku darsanay. haddaad u baahantahay istiraado kugu yar tahay. waa ujeediin saaxiibyaalo. maalinna double kareemka kaligiisa marsanaysaa oo caaga ku jiro. maalinna kana marsanaysaa. waa ujeediin muxuu ka baryayaa kareem kiimika waxa waaye kana kaaga fiican kaaga nafaqo badan wejigaaga qurux. hadduu wejigaaga qalalan yahay wuu ku anfacaa.
hadduu wejigaaga caato yahayna wuu ku anfacayaa labadaba wuu kugu soo dhaweynayaa insha allah xaggiina waaye wixii tala iyo tusaale ah waana mahadsantihiin sida quruxda badan aa mar iila fiirsatiin ama fiidiyaasha aan soo dhigo aa u aragtiin kaasa caagii kareemka ahaana maasha allah sidaan quruxda badan noogu soo baxay caageeni waxaana marnaba ka maqneen waa kan waa geedka isagana soo dhawow wixii tale iyo tusaale waa xaggaaga waana mahadsan tahay maasha allah tabaarakallah fiidiyogayga haddaad ka hesho share like-tana waa muhiim ila wadaag insha allah waa inoo fiidiyo dambe wixii nafaqo oo cabitaan aa u baahantihiina oo aad u nafaqaysanna maasha allah waa idiin soo gelinayaa oo walaashiin Firdowso oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo walaalaha wadajir group ku jiro team wadajir waxaan idinka codsanayaa walaashay Raxmo Sheekh Daahir inaad u saartiin subscribe oo gambaleelkana u furatiin sidaan hadda anigaba ugu furanayo waa u jeediin insha allah biidnillah qof walba waxaan ku dhiirigelinayaa qofkii oo YouTube oo cusub in anaga u share gareeno qofkii asagana maasha allah tabaarakallah dadaalkiisa muujinayana in hore loo sii qaado gabadhan walaasheen waa u jeediin way cusub tahay fiidiyaal badan ayay soo gelisay wax badan ayaad ka faa'iidi doontiin iyo tacliim badan ee iyada xaggeeda in idinka wado maasha allah waa u jeediin channelkeeda Raxmo Sheekh Daahir insha allah subscribe ku xaggeena like-ta sidoo kale fadlan ku soo biir aan iscaawinno dad walaalaa nahnay insha allah oo walaashiin Firdowso oo idin leh team wadajir group hadda xaggiina waaye wixii dhiirigelin ah